gudoomiye ku soo dhawow ciidankii saldhigga wadnaha wafsigii ballaadhnaa uu hogaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ayna kamid ahaayeen xildhibaano ka kala tirsan labada golo ee guurtida iyo baarlamaanka wasiirada hawlaha guud iyo horumarinta biyaha oo muddooyinkii dambe safar shaqo ku joogay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayna wehelinayaan maamulka heer gobolkan degmada ayaa kormeer maanta ku sameeyay xarumaha ciidanka booliska ee degmada Laascaanood iyagoona uu kuurgalaya xaaladda ay ku shaqeeyaan laamaha amnigu dhinaca kalena dhagax dhigay mashruucyo saldhigyo ciidan boolis lagaga hirgelinayo xaafadaha magaalada Laascaanood sida xaafada Sayidka iyo Bisha Cas waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay kana warbixiyay baahiyaha laamaha amnigu ku shaqeeyaan taliyaha qaybta booliska gobolka Sool maayirka degmada Laascaanood iyo barasaabka gobolka Sool halkani waa meesha markaanu sahlanay ugu baahida badan inay noqoto saldhig boolis dhibaatooyinka aad u jira dhulku waa wada dhul dadweyne oo meel bannaan ma leh nin ka mida muwaadiniinta reer Laascaanood oo deegaankan leh ayaanu waxaanu ka codsanay inuu dhulka naga siiyo magaalada dhexdeedu xiriir bay noqotay waa ka weynaysay koona u tahay maanta waxaa la dhagax dhigayaa saldhig boolis xaafadda Sayidka oo magaalada Laascaanood ku taala oo ka mid ah xaafadaha baahida weyn u qabay in saldhig boolis laga dhiso ilaahay mahadi maanta la dhisayaa dhulkana waxa bixiyay kulli muwaadin taariikhdu xusu doonta dilaaheedmo وين قبل سلقيها هاي ما أنت الحمد لله رب العالمين أديها أنا قاعد أجاها أنا تعب اسمه فارجين إلا هاي ما بركيه وباهدي وين قبل بيدقوا قبل هاي أدي لا ماشي كبحضه wasiirka hawlaha guud guriyeynta iyo dhulka iyo wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay mashaariicaha xukuumadoodu ka fulinayso guud ahaan gobolkan Sool wadaadka Abdullaahi Wadani halkan كل يدن جود ولا ولا هاي سجل لفتيس كل يدن جود ولا ولا وهم ما عندنا برنامج كان نجحنا ما هي سيدا ونقصها بعد بعد اسمه لو بلا ويا ويك لمات كيس ويك هذا كله عشان بدون بعد شيءنا اسمه بلا ما سلك البوليس حيلته جود هير قرن وهجامين هي قدومية قراها وكيلة قراها وزير هذا يقراها لبضة قلا بورتيدا يحل وكيلة wafti ballaaran oo aan nahay waxaan kormeer ugu jiray inaan u kuul galno nabadgelyada deegaanka iyo saldhigyada waxaana ka muuqata kolley inay meesha u baahan yihiin dhammaan in si la dardargeliyo nabadgelyada duruufo adag bay askarta ku soo shaqeeyeen oo iska qiyaasi karaynaa dhib badan iyo waa garan karaynaa wax badan inaad ku soo shaqayseen waxaa laydinka baahan yahay ciidan badan baa la qorayaa wax badan baa la keenayaa hawl badan baanu gelaynaa inta ka horeysa inaad wixii hawla sii dardargelisaan baa laydinka baahan yahay ugu dambeyntiina gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa ku dheeraaday faa'iidooyinka mashruucan uu leeyahay bulshada isagoona baaq u diray bulshada gobolka Sool sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen mashaariicahani waxaan loo baahan yahay waxa weeye in lagu daydo waxa madaxweynuhu amar lagu siiyay in laba police station hadda la dhiso ma aha dhagax qura waa la dhisay waa la bilaabay naqshadii baa sugnaa kana tagin ilaa la bilaabo dhisma mid saddexaad baa la codsaday mid saddexaad madaxweynuhu qaal saddex bilood dibadii ka saddexaad ilaa la dhisay ilaahay marka aad iyo aad waxay qolada booliska iyo gobolku waxay ka cabanayeen boolis la'aan iyo police station la'aan iyo ka cabanayeen police stationkiina waa la idin dhisay ciidankii booliskana waa la idin keenaya 300 oo booliis waa la idin keenaya marka hadhow dee wixii dhaca idinka mas'uuliyadda idinka ilaa ceebta hadda idinku isku soo wareejinaya سمير سعيد بلفوغان رجع حرتها يا بولش لاصعنود